Ku soo dhawow qaybta maalinlaha ee soo koobidda animeyada. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa afarta qaybood ee ugu horreeya taxanaha Alwashito. Ka hor inta aynaan bilaabin, fadlan iska qor kanaalka kuna dhufo gambaleelka si aadan u seegin qaybaha xiga. Qaybtu waxay ka bilaabataa tartan kubadda cagta ah oo ka socda dugsi dhexe oo ku yaala Nahime, Jabaan. Ciyaaryahan la yiraahdo Ashito ayaa si cajiib ah u ciyaaraya, waxaana kooxda ka soo horjeeda ay u arkaan khatar. Markuu Ashito dhaliyo 3 gool, asaga iyo saaxiibadiis waxay dareemaan inay haystaan fursad ay ciyaarta ugu guuleystaan oo u gudbaan semifinalka. Si kastaba ha ahaatee, goolhayaha kooxda kale markuu dareemo inay luminayaan ciyaarta, wuxuu isku dayaa inuu khalkhal geliyo Ashito. Waxaa soo baxaysa in goolhayahaas uu fasal la ahaa Ashito xilligii dugsiga hoose, isla markaana ay isku koox kubad ah ahaayeen. Wuxuu ku caayaa saaxiibadiis isagoo leh, waxay yihiin nacasyo daba socda adiga darteed. Si lama filaan ah, Ashito ayaa madaxa ku dhufanaya goolhayaha, taasoo keenta in laga saaro ciyaarta, kooxdiisana laga adkaado. Dhanka kale, nin qarsoon oo fadhiyay garoonka ayaa si dhow ula socday ciyaarta Ashito. Markii dambe, hooyada Ashito ayaa si kulul ula hadasha, iyadoo ku canaananaysa inuu xanaaqay. Tababaraha kooxdiisana wuxuu u sheegaa inuu lumiyay fursaddii uu ku ciyaari lahaa horyaalka dhalinyarada. Ninkii qarsoonaa ee daawanayay ciyaarta ayaa istaagaya xeeb, isagoo muddo 2 saacadood ah daawanayay Ashito oo ordaya. Markuu ninku u yeero oo la hadlayo, Ashito wuu suuxaa daal darteed. Markii uu soo tooso, wuxuu arkaa ninka oo tijaabinaya xeelad kubadeed oo gaar ah. Ashito ayaa la yaaba, wuxuuna weydiistaa inuu barto xeeladdaas. Laakiin inkastoo uu isku dayo marar badan, ma awoodo inuu sameeyo. Sidaas darteed, ninkii wuxuu u maleeyaa inuu si qalad ah u arkay kartida Ashito, wuxuuna u arkaa ciyaaryahan liita. Wuxuu bilaabaa inuu kala hadlo xeelado ciyaarta kubadda cagta ah. Ashito marka hore wuu iska indha tiraa, laakiin markuu faahfaahinayo sida uu saaxiibadiis uga caawiyay inuu gool dhaliyo, ninku wuu la yaabaa. Ashito wuxuu qiraa inuu yahay qof xanaaq badan oo aan si fiican ula jaanqaadi karin ciyaar kooxeed. Isaga oo sidan had iyo jeer waa la diidi jiray ilaa uu la kulmay saaxiibadii dugsi dhexe ee aqbalay sida uu yahay. Wuxuu ku sharxayaa ciyaartiisa isagoo sawir ka sameeyay ciidda xeebta. Ninkii wuu yaabaa markuu ogaado in Ashito xasuusto booska ay 22 ciyaaryahan ee garoonka joogay ku kala sugnaayeen. Dhinaca kale, goolhayihii horay ula dagaalay Ashito ayaa yimaada guriga Ashito, wuxuuna ka raali gelinayaa hooyadiis. Wuxuu qiraa in Ashito madaxa ku dhuftay kadib markii uu aflagaadeeyay inuu sabool yahay iyo markuu hooyadiis caayay. Mar kale xeebta, ninkii qarsoonaa wuxuu fadhiistaa kursi si uu u nasto, wuxuuna seexdaa. Markuu soo tooso, wuxuu arkaa Ashito weli ku celcelinaya xeeladii uu baran waayay. Si lama filaan ah, Ashito wuu ku guuleystaa barashada xeeladda, inkastoo uu daal la dhaco kadib habeenkii oo dhan oo uu ku celcelinayay. Ninku wuxuu isbarayaa isagoo leh, Fukuda Tetsuya waa maamulaha kooxda dhalinyarada ee Esperian FC ee Tokyo. Wuxuu sharxayaa in koox kasta oo dhalinyaro ah oo horyaal ciyaarta ka qayb qaadata ay leedahay koox dhalinyaro ah oo ciyaartooyda dugsiga sare ka kooban. Markaas ayuu Tetsuya weydiinayaa Ashito inuu u yimaado imtixaanka xulashada kooxdiisa ee Tokyo. Markuu Ashito arrinta kala hadlo hooyadiis, way diidaa inuu u safro Tokyo sababo dhaqaale awgood. Inkasta oo uu murugoodo, Ashito wuu sii ciyaaraa asxaabtiisa sidii caadiga ahayd. Maalin dambe, walaalkiis weyn ee Shun ayaa u sheegaya in Tetsuya yahay ciyaaryahan heer caalami ah oo dhaawac dartii ciyaarta uga fadhiistay. Waxaa si lama filaan ah, Shun u dhiibaa walaalkiis lacagtiisa kaydsan si uu guto riyadiisa kuna aado imtixaanka. Waxa uu sidoo kale ballanqaadaa inuu hooyadood la hadli doono si uu u qanciyo. Markaas ayaa Ashito aadaa magaalada Tokyo, xarunta Esperian FC, wuxuuna aad ula dhacay goobta weyn ee kooxda. Wuxuu la kulmaa walaasha Tetsuya, Hana, taasoo u sheegta in ciyaartoy fara badan oo ka kala yimid dugsiyada sare iyo dhexe ay ka qayb galayaan imtixaanka. Markay aragto sida uu ugu farxay garoonka cawska leh, Hana waxay ka shakisaa go'aanka walaalkeed ee ahaa inuu ku casuumo. Dabayaaqadii, Tetsuya iyo tababarayaashu waxay isu yeeraan 86 ciyaaryahan oo u yimid tijaabada. Waxay sharxaan xeerarka iyo habraacyada. Markuu Tetsuya sheego in suurtagal tahay in midna la xulan waayo, Ashito wuu xanaaqaa isagoo sheegaya in aysan cadaalad ahayn. Laakiin Tetsuya wuxuu sharxaa in kooxaha dhalinyarada aysan ahayn iskuulo lagu barto kubadda cagta, balse ay doortaan ciyaartooyda diyaar u ah inay isla markiiba ciyaaraan. 20 daqiiqo ciyaar tijaabo ah ayaa loo qorsheeyay si loo xusho ciyaartooyda. Kooxda Ashito waxay la ciyaaraysaa koox adag. Laakiin dabeecaddiisa hore ee ah inuu kubadda isku haysto si uu gool u dhaliyo, waxay keentaa in saaxiibadiis aysan rabin inay kubadda siiyaan. Mid ka mid ah saaxiibadiis, Isaku, ayaa ku qayliya isagoo leeyahay, maxaad isku keligaa ugu ciyaaraysaa? Waa inaan koox ahaan u ciyaarnaa. Dhanka kale, dad daawanaya ciyaarta waxay ka hadlayaan ciyaaryahan la yiraahdo Taibana oo ah laacib kooxda kale ah. Hana oo isna daawanaysa ciyaarta waxay weydiinaysaa Tetsuya haddii ay caqli gal tahay in kooxaha ay xirfad ahaan si weyn u kala duwan yihiin. Tetsuya wuxuu ku jawaabaa inaysan ku qiimeyneyn xoogga jirka ama xirfadda ciyaartooyda, balse maskaxdooda iyo fahamkooda ciyaarta. Markuu bilaabo inuu dhaqaaqo, Tetsuya wuu farxaa. Ashito wuxuu la wareegaa kubadda, balse ma dhiibin, iyadoo 2 ciyaartoy ka soo horjeeda ay hor taagan yihiin. Markii 5 daqiiqo uun ka harsan tahay ciyaarta, Ashito weli wuu hayaa kubadda, dadka oo dhan waxay isweydiinayaan waxa uu damacsan yahay. Hana markay eegto Tetsuya waxay aragtaa isagoo dhoola cadaynaya, taasoo muujinaysa inuu og yahay in wax lala yaabo ay dhacayaan. Markii 2 ciyaaryahan oo kale ka soo horjeeda ay u soo dhawaadaan, Ashito wuxuu kubadda la ordaa dhanka goolkiisa, taasoo ah wax aan la filaynin. Isla waqtigaas, ciyaaryahan Kineda ayaa u ordaya dhanka goolka kooxda kale. Ashito wuxuu kubadda si xoog leh ugu tuuraa Kineda, kaasoo madax ku dhaliya gool. Ciyaarta way dhamaataa, Ashito aad buu ugu farxaa naftiisa. Markuu Kineda suulka u taago si uu ugu bogaadiyo, Ashito wuu dhoola cadaynayaa. Dhanka kale, Tetsuya iyo tababarayaashii kale ma rumaysan karaan wixii ay arkeen.
mid ka mid ah tababarayaasha ayaa leh waxaan arkay muuqaalka ciyaartoy leh aragti sare oo garoonka oo dhan ah. Kadib Tetsuya wuxuu ku dhawaaqaa in dhawaan la shaacin doono magacyada 11 ciyaartoy ee u gudbi doona heerka xiga ee qiimeynta, taasoo Ashito ku beerto walbahaar. Markii uu Ashito joogo maqaayadda, wuxuu ogaadaa in Hana, gabadha ka shaqaynaysa maqaayadda, ay dhab ahaantii tahay walaasha Tetsuya. Ugu dambayn, 8 wiil oo imtixaanka galay, waxaa la doortaa keliya 11 ciyaartoy si ay uga qayb qaataan heerka ugu dambeeya ee qiimeynta. Sidii la filayay, Ashito ayaa ka mid noqda kuwa la xulay, waxaana sidoo kale la xulay Isaku, Tachibana, Kaneda iyo kuwa kale. Markaas kadib, Ashito oo aad u faraxsan ayaa waca walaalkii Shun, wuxuuna la wadaagaa warka farxadda leh. Markii dambe wuxuu isku dayaa inuu la hadlo ciyaartoyda kale ee la xulay, balse intooda badan dan kama laha la hadalkiisa. Si kastaba, Tachibana, Kaneda, Isaku iyo 2 kale ayaa u yimaada, waxayna bilaabaan inay ka wada hadlaan sida ay ugu hanweyn yihiin in la xulo. Ciyaartoyda kale qaar waxay niyad jabaan iyagoo ka baqaya in haddii aan la xulin nolol la'aan ku dhici doonto. Laakiin Ashito ayaa dhiirigeliya, wuxuuna leeyahay, idinku waad xirfad leedihiin, aad baan ugu faraxsanahay inaan idinla ciyaaray. Dhanka kale, Tetsuya wuxuu ciyaartoyda usoo bandhigayaa kooxda ay wajahayaan ee heerka dambe, kooxda dhalinyarada ee Aspirian. Markay arkaan wiilashii, waxay isla markiiba cabsadaan, waxayna u arkaan wax aan cadaalad ahayn, maadaama kooxda Aspirian Youth ay yihiin ciyaartoy xirfad sare leh. Laakiin Ashito wuu niyad adag yahay, wuu dhoola cadaynayaa, wuxuuna dhiirigelinayaa saaxiibadiis isagoo leh, waxaan aaminsanahay inaan samayn karno. Tachibana ayaa sidoo kale ogolaada, wuxuuna sheegayaa in inta badan ciyaartoyda Aspirian Youth ay yihiin sanadkii 1 ee dugsiga sare, taasoo macnaheedu yahay 1 sano oo keliya ay kaga horeeyaan wiilasha. Markii dambe, ciyaaryahan Akutsu oo ka tirsan kooxda Aspirian Youth ayaa la hadla Tetsuya markuu maqlo Ashito oo si kalsooni leh u dhiirigelinaya saaxiibadiis. Akutsu wuxuu u arkaa in wiilashu ay si khaldan u fahmeen kooxda Aspirian. Markaas ayuu u tagaa Ashito, wuxuuna weydiinayaa kabaha uu xiran yahay oo uu arko inay duug yihiin. Inkastoo kabuu wax yar duugoobeen, Ashito wuxuu u sheegaa inay weli raaxo u yihiin. Markaas kadib, labadooduba waxay isbarayaan oo gacanta isqabsadaan. Ashito wuxuu Akutsu u arkaa ciyaaryahan heer sare ah oo sare u qaadi kara ciyaarta. Dabayaaqadii, ciyaarta waxay bilaabataa. Kooxda Ashito si wanaagsan ayay u ciyaarayaan, waxayna dhowr jeer u dhow yihiin inay goolal dhaliyaan. Laakiin intay ciyaarayaan, Ashito iyo Tachibana waxay dareemayaan in kooxda Aspirian Youth aysan si dhab ah u ciyaarayn, waxay ula muuqataa inay si sahlan ula ciyaarayaan. Markii dambe, kooxda Aspirian Youth waxay bilowdaa inay muujiyaan xirfad sare leh oo lagu magacaabo Onetog Passing Style, habka kubadda hal taabasho lagu dhex dhaqaajiyo. Tetsuya wuxuu Hana u sharxayaa in haddii farsamadaas si sax ah loo isticmaalo, kooxda si xawli ah ayay u gaari karaan goolka kooxda kale. Laakiin habkaas wuxuu shaqeeyaa keliya marka ciyaartoyda dhammaantood ay si heer sare ah u yaqaanaan meelaha ay kubadda tegi karto, ay si sax ah isugu dhiibaan, oo ay garoonka oo dhan maskax ahaan khariidad uga haystaan. Markii qaybta hore dhammaato, Akutsu wuxuu muujinayaa dabeecaddiisa dhabta ah, wuxuuna aflagaadeeyaa Ashito isagoo leeyahay, gurigaaga ku noqo. Intii nasashada ciyaarta lagu jiray, Hana waxay u sheegtaa Ashito in Akutsu yahay ciyaaryahan aan xeerin, islamarkaana uu ahaa qofka keliya ee sanadkii hore laga xulay tijaabooyinkii la midka ahaa. Markii qaybta labaad bilaabato, kooxda dhalinyarada ee Aspirian waxay isticmaashaa xeelad cusub. Intii ciyaarta socotay, Akutsu si ula kac ah ayuu ugu dhaca Ashito isagoo dhaawacaya. Dhanka kale, Tetsuya wuxuu iftiiminayaa sababta uu kooxda Aspirian Youth uga codsaday inay ciyaarta ku bilaabaan meelo aysan caadi ahaan u joogin. Tani waxay niyad jabisaa ciyaartoydii cusub oo la tijaabinayo. Markaas ayaa la shaacinayaa in keliya 10 daqiiqo u haray ciyaarta, ayna tahay waqtigii ciyaartoydii cusub ay muuji lahaayeen kartidooda dhabta ah. Mid ka mid ah ciyaartoyda cusub ayaa argagaxa, wuxuuna dhulka ku dhacaa isagoo leh, xitaa haddii ay meelo cusub ka ciyaarayeen, weli way naga fiicnaayeen, sideen sanad gudaheed ku gaari karnaa. Markuu ciyaarta dib u bilaabmayo, Ashito wuu isku dayaa inuu istaago, laakiin wuu xanuunsan yahay. Markaas ayuu xusuustaa markii hooyadiis ay u iibisay kabo qaali ah, inkastoo xaaladooda dhaqaale ay liidato. Wuxuu kor u istaagaa isagoo go'aansanaya inuusan ka quusan. Markuu arko Tetsuya oo si niyad jab leh u eegaya, Ashito wuxuu garwaaqsadaa in haddii uu ciyaarta isaga tago, ay dhaawici doonto hooyadiis iyo walaalkiis, kuwaasoo marna aysan ka hor istaagin riyadiisa, inkastoo ay la kulmeen dhibaatooyin badan. Si lama filaan ah, Ashito wuxuu helaa dhiirigelin, wuxuuna dib u helo kartidiisii. Wuxuu hor istaagaa Akutsu, wuxuuna madaxa kaga celinayaa kubad, taasoo aad uga xanaajisa Akutsu. Nahime gudaheeda, hooyada Ashito waxay ka walwalsan tahay wiilkeeda. Walaalkii Shun wuxuu u sheegaa in dakhliga celcelis ahaan ee ciyaaryahan heer dhalinyaro ah uu la mid yahay kan shaqaalaha xafiiska. Hooyadii way fekeraysaa, waxayna leedahay, runtii waan xiisaynayaa, laakiin weli ma hubo in Ashito la xulan doono. Garoonka dhexdiisa, Ashito wuxuu bilaabaa inuu si fiican u ciyaaro, wuxuuna bilaabaa inuu is-ammaano. Wuxuu naftiisa u ballanqaadaa inuusan ka fikiraynin wax kale marka laga reebo ciyaarta. Wuxuu rumaysan yahay inuu leeyahay sabab u gaar ah oo uu ciyaarta u jecel yahay, xitaa haddii kooxda kale ay ka xoog badan tahay. Markii dambe, dadku waxay bilaabaan inay ammaanaan adkaysiga iyo kalsoonida Ashito. Markay Hana sacab u garaacdo si ay u muujiso taageerada Ashito, dadkii kale ee daawanayay way ku daydaan. 3 daqiiqo ee ugu dambaysa ciyaarta, Ashito wuxuu muujinayaa dadaal buuxa, wuxuuna u sheegaa Tachibana inuu la joogo. Tachibana wuu dhiirigeliyaa, wuxuuna bilaabaa inuu weeraro sameeyo. Inkasta oo ciyaartoyda kale ay daaleen, Ashito iyo Tachibana weli si adag ayay u dagaalamayaan. Markaas ayuu mid ka mid ah ciyaartoyda Aspirian Youth kubadda si qalad ah gacanta u taabtaa, taasoo siinaysa kooxda Ashito laad hor ah. Si lama filaan ah, Isaku ayaa istaaga, wuxuuna leeyahay, aniga ayaa raba inaan laadka tuuro. Ka hor intuusan laadka tuurin, Ashito wuxuu xasuustaa hadalkii Hana ay u sheegtay, ciyaaryahanku waa inuusan weligiis joojin fikirka kubadda cagta.
iyadoo wakhtigu ku dhow yahay in la dhammeeyo Aashito wuxuu ka fikiraa waxaa suurtagal ah inay sameeyaan si ay u guulaystaan. wax yar kadib isaku wuxuu kubadda ku tuuraa dhanka goolka. Akutsu ayaa madax ku joojiya wuxuuna u gudbiyaa ciyaaryahan kale. laakiin Aashito ayaa si dhaqso ah u daba taga wuxuuna la wareegaa kubadda. ciyaartu waxay ku dhowdahay inay dhammaato balse Aashito wuu go'aansan yahay inuu gool dhaliyo si kasta ha ahaatee. isagoo adeegsanaya aragtidiisa fog wuxuu si lama filaan ah u beddelaa jihada wuxuuna u leexdaa dhinac taasoo dadkii daawanayay la yaabeen. wuxuu kubadda u dhiibaa Tachibana kaasoo isna u gudbiya isaku. markuu isaku laado si uu gool u dhaliyo Akutsu ayaa kubadda joojiya kubaddiina cirka ayay u baxdaa. si lama filaan ah Aashito ayaa meel aan laga filayn ka soo baxa wuxuuna kubadda ku dhuftaa isagoo ruxaya wuxuuna dhaliyaa gool. Aashito ma rumaysan karo inuu goolka dhaliyey wuxuuna xasuustaa wejiyada farxadda leh ee qoyskiisa. isaku iyo Tachibana ayaa laabta u gala farxad darteed. saddexdooduba si weyn ayay u dabaaldegaan halka Tetsuya uu si kalgacal leh u dhoola caddaynayo isagoo aad ugu faraxsan Aashito. fiidkii markay tahay waraysiga ugu dambeeya ee xulashada ayaa bilaabanaya. markii Aashito la weydiiyo fikirkiisa ku saabsan kooxda Asperian Youth wuxuu leeyahay way xoog badan yihiin. markaas ayuu weydiinayaa Tetsuya sababta uu ciyaartoyda Asperian Youth boosaskooda ugu wareejiyey ciyaarta. Tetsuya wuxuu uga jawaabayaa intaas ay qayb ka ahayd tababarkooda wuxuuna ciyaartoyda u sheegay usbuuc ka hor inay xitaa ciyaartoyda cusub garaacaan inkastoo aysan ku ciyaaraynin boosaskoodii caadiga ahaa. kadib qayb ka mid ah waraysiga ayaa ah in Tetsuya uu weydiiyo Aashito waxa uu ka fikirayay xilligii uu goolka dhaliyey. Aashito wuxuu uga jawaabayaa inuu maskaxdiisa ku falanqaynayay dhaqdhaqaaqa ciyaartoyda kale iyo sidoo kale inuu ka fikirayay hooyadiis iyo walaalkiis. wuxuu sii raacinayaa in ilaa maanta uu kubadda cagta u ciyaarayay sida uu isagu jecel yahay isagoo aan si dhab ah uga fikirin xeeladaha ama kooxnimada. laakiin hadda wuxuu bartay muhiimadda ay leedahay in koox ahaan loo ciyaaro iyo in xeelado la adeegsado. Aashito wuxuu qiraa in uu hadda rabo inuu noqdo ciyaaryahan xirfad leh si uu hooyadiis ugu celiyo dhammaan dhibkii iyo dadaalkii ay u martay. wuxuu yidhaahdaa xitaa haddii aanan la xulin weligay waan noqon doonaa ciyaaryahan xirfad leh. ugu dambayn wuxuu uga mahadceliyaa Tetsuya fursadda uu siiyey. markii dambe isagoo Aashito la ciyaaraya asxaabtiisa oo faraxsan ayuu jeebkiisa ka helaa warqad uu ilaaway. markuu xasuusto wuxuu garanayaa in Hana ay u sheegtay inuu akhriyo warqadda keliya marka uu gaaro Ahime. waxaa soo baxaysa in warqaddaasi tahay cunto xirfadaysan loogu talagalay Aashito. qaybta ugu dambaysa ee sheekada waxay dhacaysaa markuu hooyadiis u keento warqaddii rasmiga ahayd ee sheegaysa in la xulay taasoo farxad weyn u keenta isaga walaalkiis Shun iyo dhammaan saaxiibadiisa.